Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta 27aad oo kaashanaya dadka deegaanka, ciidamada danab, gorgor, ciidamada AMISOM ayaa si buuxda ula wareegay gacan ku haynta deegaano dhowr ah oo ay ka mid yihiin deegaanka Ceel Timiro, Sagaalgeed, Geedasamo, Aboorey oo dhammaantoodba hoos yimaada degmada Bulaburde ee gobolka Hiiraan. Xildhibaan Cabdimaalig oo qayb ka ahaa howlgalka looga xoreynayo Al-shabaab deegaanada hoos yimaada Bulaburde kuna matala dadka degan halkan ayaa qayb ka ahaa howlgalka lagu ciribtirayo nabadiidka argagixisada Al-shabaab. Aboorey oo Al-shabaab ku dhawaad 15 sano gacanta ugu jirtay ayay ciidamada la wareegeen ayagoona jab xoogganba ku gaarsiiyay halkaasi loogana dilay amiiro ka tirsan nabadiidka Al-shabaab. Xildhibaan Cabdimaalig oo ku sugnaa furunta dagaalka ayaa la hadlay dadka shacabka ah ee degan deegaanka Aboorey isagoona u sheegay in aanan dib looga laabaneynin Aboorey uguna